sidee taangiyadu u shaqeeyaan? Taangigu waa hub muhiim u ah dagaalada dhulka heer la gaarsiiyo boqorka dagaalka. Marka maanta waxaan eegaynaa sida uu u shaqeeyo iyo waxyaalaha u sahlay in uu noqdo mashiin aan looga maarmin dagaalka. Taangiyadu marxalado kala duwan ayay soo mareen oo waxay ku bilowdeen noocan waxayna soo gaareen ilaa noocan oo ah midka aan maanta ku bixin doono tusaalaheena videogan. aan soo qaadano taangiga Mareykanka ah ee M1 Abrams oo lagu magac daray taliyihii ciidamada Mareykanka ee dagaalka Vietnam lana farsameeyay 80meeyadii waana taangiga ugu qaalisan suuqa qiimihiisuna wuxuu u dhaxeeyaa 6 ilaa 8 milyan oo dollar dhererkiisu waa 2 mitir iyo bar balciisu waa ku dhawaad 10 mitir joogiisuna waa wax ku dhow 4 mitir culeyskiisu waa 68 oo u dhiganta 35 gaari oo yar yar isagoo saas dhan u culusna wuxuu tari karaa xawaare gaariya 72 kilomitir saacadiiba kaarahan taangigiisa shidaalku wuxuu qaadi karaa 1892 litir oo shidaal ah halka baabuurta badankooda uu qaado 60 litir si guud markaan u fiirino qaybaha uu ka kooban yahayna waa silsilada qaabka dirindiirta ah taayirada oo dhinaciiba 7 kaga taalo qaybta weyn ee baadhigiisa oo ay hool ugu yeeraan tarad oo ah qaybta wareegta ee hubka iyo qalabka kale uu ku rakiban yahay waxaana markiiba raaca oo ka dhex shaqeeya tiim ka kooban 4 askari saddex ka mid ah waxay ku jirtaa taradka oo ah qaybta sare ee wareegta midna waa darawalkii oo wuxuu ku jiraa qaybta hoose wajahadiisa horena way xoodan tahay si hadii hore xabad looga soo riday u saranto aynu sii faahfaahinay waxaan ku bilaabaynaa silsilada taayirada ka sarreysa ee dirindiirta loogu magac daray waxay ka samaysan tahay biro iyo ramagyo la isgalgelin karo lana bedeli karo waxay ka sarreysaa oo ku wareegsan tahay taayirada waxaana wareejiya labada taayir ee sare dhulkana ka kacsan gadaalna kaga yaala taangiga waa dhinaca matoorku xigee labadaas maahana inta kale waa iska wareegayaan waxna ma dhaqaajiyaan biro yar yar oo kor iyo hoos u dhaqaaqi kara ayaana mid walba ku haya meeshiisa ujeedada silsiladan loo isticmaalana waa in aysan taangiga joojin caqabadaha yar yar sida godadka iyo buuraha meel walbana uu mari karo halka baabuurta afarta taayir la ay celin karaan godad yar yar marka la leexinayo steering ma laha ee labada dhinac ee silsilada ayaa midkii la rabo in dhinaciisa laga leexdo xawaaraha loo badiyaa nasiib darrana silsiladu waa meesha ugu jilicsan ee taangiga wayna jabi og tahay laakiin waxa mar walba loo qaadaa spare part si dib loogu hagaajiyo taangiguna uu shaqadiisa u sii wato aan ku xijinna matoorka oo ku yaala gadaasha dambe ee taangiga marka la dayactirayo matoorka oo dhan waa laga soo saari karaa matoorka saaran taangigan M1 waa AGT 1500 wuxuuna ku shaqeeyaa dhowr shidaal oo kala duwan gaar ahaan wuxuu aad ugu sii shaqeeyaa shidaalka diyaaradaha baabuurta matoorkooda waxa ku jira waxa la dhaho piston oo kor iyo hoos u dhaqaaqa si ay u wareejiyaan taayirka laakiin taangiga matoorkiisa waxa ku jira matoor sida marwaxadda oo kala ah wuxuuna u shaqeeyaa si u dhow matoorka diyaaradaha wuxuu ka guux yar yahay si aysan cadowgu u ogaan meesha uu yaalo ee uu ka soo dagaalamayo matoorkan wuu kullaan og yahay marka labadan qaboojiye ayaa ka caawiya in ay qaboojiyaan qiiquna gadaal ayuu ka baxaa si marka matoorku daaran yahay uusan taangiga gudihiisa u wasakhoobin gadaashiisa waxa ku yaala telefoon si askarta banaanka joogta ay ula xiriiraan kooxda gudaha ku jirta geesaha waxa uga dahaaran bir difaac u ah silsilada si aan loo toogan oo aysan u kala go'in waana la furaa marka la rabo in taayirada shaqo laga qabto horeyna waxa uga yaala 2 laayir iyo 4 sido oo ama uu wax ku jiido ama isaga lagu jiido aan u imaano qaybta taradka ee sare waxay sameyn kartaa wareeg dhammaystiran 9 ilbiriqsi gudaheed kanna waa qoriga weyn ee dhuuntiisu tahay 120 milimitir magaciisana la dhaho smooth bore cannon rasaasta waxay afkiisa uga soo baxdaa xawaare dhan 3500 oo mayl saacadiiba waxayna ku dhici kartaa bartilmaameed u jira 2 mayl ama 3 kilomitir iyo 200 oo mitir wuxuu qorigu leeyahay xasiliye automatic ah oo qoriga bartilmaameedkiisa ku haynaya hadii uu xitaa taangigu maraya meel aan sinayn xitaa inta hoose ee taangigu way wareegi kartaa isagoo qorigu ku xiran yahay bartilmaameedkiisii qoriga weyn agtiisa waxa ku yaala qori kale oo yar oo darandoori u dhaca korna waxa ku yaala isna qori kale oo darandoori u dhaca waxaana loogu talagalay hubkan yar yar ee fudud in ay difaac iyo gaashaan taangiga u noqdaan goortii uu cadowgu hoosta ka soo galo geesihiisana waxa ku xiran 2 qiiq siideeyayaal goortii uu qiiqan sii daayina taangiga way adag tahay in la arko xilliga dagaalku socdo kor waxa uga yaala 2 dalool waa daloolka taliyaha iyo daloolka cabeeyaha qoriga taradka gudihiisa waxa ku jira 3 kamid ah 4 askari ee taangiga ku jirtay ninka xabadda rida wuxuu fadhiyaa dhinaca midig taliyuhuna wuxuu fadhiistaa gadaashiisa oo xoogaa ka koreysa cabeeyuhuna wuxuu istaagaa dhinaca bidix marka uu taradku wareegayana saddexdaani way la wareegtaan qaybtan hoosana wuxuu ku leeyahay taradku sallad yar ama dambiil taasoo kor u haysa raggan aan soo sheegnay waxa kale xusuusin mudan in taliyuhu uu haysto meelo uu wax ka arki karo 360 degree ama wareeg dhammaystiran rasaasta qoriga weynna waxay ku rasaysan tahay sanduuq gadaal ku rakiban cabeeyuhuna si fudud ayuu uga soo bixin karaa uuna cabeyn karaa qoriga waxaana laga rabaa in uu si boobsiisa u sameeyo xilliga dagaalka lagu jiro haddii ay dhacdo in rasaasta gudaha ku jirta midood ay qaraxdo sanduuqa ayaa korkiisu jilicsan yahay oo banaanka ayuu u bixi doonaa qaraxaas
intii uu waxyeelayn lahaa kooxda gudaha ku jirta darawalku wuxuu fadhiyaa qaybta hore ee taangiga isaguna wuxuu leeyahay dalool uu waxna ka arko kana soo bixi karo maadaama uusan darawalku haysan meel ku filan oo uu si quman u fariistana waa uu janjeeraa gadaal ayuuna u leexsan yahay halkan ayuu wax ka kontaroolaa wuxuuna leeyahay laba bareeg labadan meelood ee madow ayuuna u isticmaalaa markii uu xawaaraynayo iyo markii uu leexanayaba ama steering ahaan sidoo kale darawalku wuxuu leeyahay periscope uu ogolaanayo inuu wax ka arko 120 degree oo ka horeysa inkastoo uu darawalku taangiga ka soo galo daloolka banaanka ah haddii loo baahdana albaab kale oo yar ayaa gudaha ku yaala kaasoo uu ka soo bixi karo kana geli karo Mareykanku waa wadanka kaliya ee leh isticmaalana taangigan M1 Abrams laakiin wadamo kale ayuu ka gaday sida Australia Masar Kuwait iyo Sacuudiga taangigu wuxuu hadda shaqaynayaa in ka badan 30 sano waa laga yaabaa in la bedelo laakiin hadda waa taangiga guud ee dagaalada Mareykanka dhulka waa ku mahadsan tahay daawashadaada haddii aad halkan soo gaartay waxaan dhawaan wadaynaa muuqaalo la dhaho sidee agabkaani u shaqeeyaan ku xirnow page-ka si aysan kuu dhaafin wassalaamu calaykum waraxmatullah